kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba caalamka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena sirdoonka ee siyaasadda oo aanu ku soo qaadanayno safarka qarsoodiga ah ee ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu ku tagay dalka Sacuudi Carabiya. wasiir ka tirsan xukuumadda Benjamin Netanyahu xubinna ka ah xisbiga Likud ayaa qiray warar ay baahisay warbaahinta Israel oo sheegaya in ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu socdaal qarsoodi ah ku tagay dalka Sacuudiga waxaana ku tilmaamay tallaabo muhiim ah. Yoav Gallant wasiirka waxbarashada oo waraysi siiyay warbaahinta militariga Israel ayaa waxa uu yiri xaqiiqada la hubaa waa in kulankaasi dhacay waana arrin wax ku ool ah xitaa haddii aan si rasmi ah warbaahinta loola wadaagin. warbaahinta Israel ayaa waxa ay tibisay in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu uu Sacuudiga kula kulmay dhaxal sugaha taajka boqortooyada Mohammed bin Salman iyo wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo booqasho ku jooga Sacuudiga. ilaa haatan wax rasmi ah oo ku saabsan arintaasi kama soo bixin xafiiska ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo safaaradda Mareykanka ee Qudus. wargeyska Haares ee Israel ka soo baxa ayaa isna baahiyay qoraallo muujinaya khadka duulimaadka dayuuradda uu leeyahay nin ganacsade ah oo ku kala gooshtay magaalooyinka Tel Aviv iyo gobolka Neom ee waqooyi galbeed ee Sacuudiga halkaas oo ay ku kulmeen Mohammed bin Salman iyo Mike Pompeo. Mike Pompeo ayaa isku dayay in uu Sacuudiga ku qanciyo in uu qaado dhabaha ay dhawaan mareen dawladaha Carbeed sida Bahrain, Imaaraadka iyo Suudaan oo cilaaqaad rasmi ah la yeeshay Israel. iyadoo in muddo aaba la ogaa in Sacuudigu ay xiriir qarsoodi la leeyihiin Israel ayaa waxa la isweydiinayaa Sacuudigu ma ku dhiiran karaa xiriirka caadiyeynta Israel. su'aashaasina waa mid ay muddo isweydiinayeen khubarada falanqeeya siyaasadda bariga dhexe oo badankood ay u badinayaan in xiriirka qarsoodiga ah jiro oo aanay arintu taagnayn ma dhici doontaa ee ay tahay in la isweydiiyo goorma ayaa la shaacin doonaa xiriirka Israel iyo Sacuudiga. madaxda Sacuudiga oo taariikh ahaan lagu yaqaano in ay dhaliilaan Israel iyo sida ay ula dhaqanto Falastiiniyiinta ma waxay ugu dambeyn ku sii dhawaanayaan in ay hagaajiyaan xiriirka ay la leeyihiin wadanka ay warbaahinta Carabtu ku tilmaamaan maamulka difaaca Yuhuudda. hadalhayn qabsatay baraha bulshada oo ku saabsan arintaas ayaa waxa sii xoojiyay waraysi uu telefishinka Al Arabiya siiyay madaxii hore ee sirdoonka Sacuudiga ahaana danjarihii Sacuudiga ee muddada dheer joogay magaalada Washington Amir Bandar bin Sultan Al Saud. waxa uu Amir Bandar si adag u cambaariyay dhaliilaha ay hogaamiyaasha Falastiiniyiintu u jeedinayaan heshiiskii nabadeed ee dhawaan dhexmaray Israel iyo qaar ka mid ah dalalka Khaliijka Carabta. dooda heerka hoose ah ma ahan mid aan ka filaynay in looga falceliyo tallaabada ay qaadeen mas'uuliyiinta dadaalka ugu jira sidii loo heli lahaa taageerada caalamiga ah ee ku aadan danahooda ayaa uu yiri Amir Bandar. lama aqbali karo carada ay hogaamiyaasha Falastiiniyiintu ka muujiyeen go'aanka madaxda Khaliijka ayaa uu hadalkiisa raaciyay. Amir Bandar oo muddo 22 sano ah soo ahaa safiirka Sacuudiga ee Mareykanka aadna ugu soo dhawaa madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush oo xitaa lagu naanaysi jiray Bandar bin Bush ayaa sheegay in nidaamka hogaamiyaasha Falastiiniyiinta uu guuldareystay. waxay taageerada Sacuudiga u qaateen sidii wax ay xaq u leeyihiin ayaa hadalkiisa raaciyay. waraysigiisa ayaa uu aad uga hadlay waxa uu ku sheegay mowqif la'aanta ka dhex jirta Falastiiniyiinta dhexdooda. erayada noocaas ah ee ka soo yeeray sarkaal sare oo Sacuudiga ah oo ku dhow qoyska talada haya lagama sii dayn lahayn telefishin uu Sacuudiga leeyahay haddii aysan soo ansixinin boqor Salman iyo wiilkiisa dhaxal suga ah Mohammed bin Salman. waxaa kale oo markii ugu horeysay taariikhda Sacuudiga loo ogolaaday dadka sita baasaboorka Israel ee Carabta iyo Yuhuudaba in ay dalka Sacuudiga ku tagi karaan safarro diineed iyo kuwa ganacsi labadaba. wasiirka arrimaha gudaha Israel ayaana isaguna waxa wada tashi uu la yeeshay laamaha nabadgelyada ee dalkaasi Israel kadibna waxa uu bishii January ee horaantii sanadkan soo saaray warbixin ku sheegay in muwaadiniinta Israel loo ogolaaday in ay Sacuudiga ku tagi karaan laba arrimood midkood oo ah sababo diineed oo ah xajka ama arrimo la xiriira ganacsiga sida maalgashiga ama shirarka ganacsi. maalmo ka hor inta aan qoraalkaasi ka soo bixin wasaaradda arrimaha gudaha Israel xogayaha guud ee ururka Raabita al-Aalam al-Islaami Mohammed al-Ciisa ayaa booqasho ku tagay xeradii Naansigii Germany ee dalka Poland 75 sano uu ku xasuuqi jiray Yuhuudda.
maxamed al ciise oo horey usoo qabtay xilka wasiirka cadaaladda waxa uu socdaalkaasi ku wehlinayay wafdi uu hogaaminayo oo uu goobta ku dujiyey. wargeysyada Israa'iil ayaana waxa ay safarkaasi kadib waxa ay ka qoreen qoraallo dhaadheer waxa ayna ku sheegeen xogayaha guud ee raabida al-caalam al-islaami oo u dhashay dalka Sacuudiga maxamed al ciise iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ku tukaday xeradii Yuhuudda lagu xasuuqi jiray waxa uu ugu duceeyay halkaasi. arintaasi ayaa ku soo beegantay iyada oo ay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump diyaarinayay qorshihiisa nabadeed ee bariga dhexe oo loo bixiyay heshiiska qarniga, taas oo ujeedadiisu tahay in dhulka daanta galbeed ee la haysto 70% laga dhiso dowlad Falastiiniyiintu leeyihiin oo aan hubaysnayn, sidoo kale aan maamulin hawadeeda, sidoo kale heshiisyo caalami ah aan geli karin, hase yeeshee ay Falastiiniyiintu gaashaanka u daruureen. qorshahaasi ayaa sida ay ku warameen wargeysyada Israa'iil ee uu ka mid yahay wargeyska gudaha Israa'iil loogu akhrinta badan yahay ee Ahronoth dhinaca dhaqaalaha ay kaga taageerayaan Sacuudiga iyo Imaaraadka oo maalgelin doona mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyo dhulka Falastiiniyiinta si loo ogoleysiiyo Falastiiniyiinta in ay qaataan heshiiska nabadgelyada ee bariga dhexe. balse su'aasha la isweydiinayo ayaa waxay tahay maxalkii colaadda Carabta iyo Israa'iil baa mise saxaafadda Carabta iyo warbaahinta internetka ayaa waxaa lagu soo bandhigayay falanqayn ku aadan waxa lagu tilmaamay nabadda Khaliijka iyaga oo tilmaamaya sida Imaaraadka iyo Bahrain ay heshiiska xiriirka soo celinta ula galeen Israa'iil, arintaasi oo uu Mareykanku garwadeen ka ahaa. qorayaasha wax ku qora saxaafadda Carabta ayaa waxa ay nabadaasi ku tilmaameen in uu xal sixir ah u yahay dagaalka 50 sanadood soo socday uu dhaxeeyay Carabta iyo Israa'iil, halka kuwa kalena ay cambaareeyeen oo ay ku tilmaameen malaha waa midkii soo afjari lahaa riyadii Falastiiniyiinta ee ahayd in ay mar uun dowlad dhistaan. saxaafadda Carabta ayaana waxa ay isweydiiyeen in Sacuudiga uu fulin doono tareenka xiriirka hagaajinta Israa'iil iyo Sacuudiga. wargeyska Sharqul Awsad ee ka soo baxa magaalada London oo warbixin dheer ka qoray kaas oo kaga hadlay dhabaha nabadda Khaliijka waxa uu yiri nabadda Israa'iil iyo in la taageero qadiyadda Falastiiniyiinta, arintaasi ayaa waxay noqotay xalka sixirka ah ee haatan jira xilli ay in xal adag laga gaaro dagaalka Carabta iyo Israa'iil ee socday 50 sanadood ka badan, halkaas oo ay soo hindiseen hogaamiyaasha Khaliijka u dhashay ee aragtida fog u leh mustaqbalkooda. waxa uu intaasi ku daray in dhabaha nabadda waa xalka xaqiiqi ah ee burburiyay ismariwaagii taagnaa muddada 50 sanadood ka badan, waana midka isbedelo muhiim ah ku keenay istiraatiijiyadda dadkii ku kala aragtida duwanaa gobolka, iyada oo heerka ka faa'iideysiga qadiyadda Falastiiniyiinta ay gaartay heer aad u xun oo ay faa'iido iyo ganacsi ay ka raadiyeen dad aan Carab ahayn oo ay ku jiraan dalal wada mashaariic liddi ku ah dowladaha Carabta iyo shacabkoodaba, taas oo qaar ka mid ah bulshooyinka Carabta lagu beerlaxawsaday magaca asal raacnimada iyo ururo islaami ah oo siyaasadeed iyo waliba magac qowmiyada. dhanka kale wargeyska Maanta iyo Masar ayaa waxa uu daabacay qoraal dheer sababaha isbedelka siyaasadda qaar ka mid ah dalalka Khaliijka ee Israa'iil, taas oo ku tilmaamay in ay tahay waaqica siyaasadeed ee haatan taagan. waxa uu yiri waxa suuragal ah in aan taariikhda lagu haynin heerka uu gaaray kala qaybsanaanta dhextaal dhinacyada Falastiiniyiinta, sidaas oo ay tahay waxaanu qadiyadda Falastiiniyiinta u arkaynay in ay tahay arinta koowaad ee Carabta walow uusan xaalku sidaasi wada ahayn. markii la eego qaar ka mid ah garbaha Falastiiniyiinta laf ahaantooda, sababtoo ah waxa ku jira kuwa qadiyadda ka dhigtay fursad ay ku faa'iidaan amaba kay dahab ah oo kale. waxa uu intaasi raaciyay cidna maskaxdeeda kuma aanay soo dhicin in dowlad Khaliijka ay u suuragelayso in ay maalin uun la fariistaan oo ay wax iska afgartaan oo ay heshiis saxiixdaan, hase yeeshee taasi waa siyaasadda haatan taagan ama waaba waaqica siyaasadeed. arintaasi ma saameynaysaa Falastiiniyiinta mise iyaga ayaaba sabab u ahaa isbedelkan ama waaqica haatan jira ayuu ujeedku yahay in lagu gaaro in la dhiso dowlad ay Falastiiniyiinta oo garab degan dowladda Israa'iil. su'aasha kale ee isweydiinta mudan ayaa waxay tahay muxuu Sacuudigu u dib dhigayaa caadiyeynta xiriirkiisa Israa'iil.
warbaahinta Al-Carabiya ayaa waxa isweydiisay maxaa Sacuudigu u dib dhigayaa tareenka ku wajahan hagaajinta xiriirka Israa'iil. sanadihii ugu dambeeyay boqortooyada Sacuudiga waxay u muuqanaysaa in ay waday olole loogu gogol xaarayo tallaabo kasta oo loogu dhawaanayo Israa'iil. dadka baraha bulshada wax ku qora ee Sacuudiga Carabiya waa kuwa u ololeynayay in xiriir lala sameeyo Israa'iil. marka la fiiriyo arrimaha siyaasadda, dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan wuxuu u muuqday mid daneynaya xiriir dhow in lala yeesho Israa'iil. boqortooyadu waxay isku dayeysay in ay ugu dhawaato maamulka Trump sida in wax laga bedelo mowqifka laga haystay Yuhuudda. si kastaba ha ahaatee waxa uu arkaa in nidaamka Sacuudigu uu ka cabsi qabo in ay dhaleecayn adag oo la soo jeediyo ay wax u dhimi karto maqaamkiisa, weliba xilli Turkiga oo uu Erdogan hogaaminayo loo arko dowlad dhexdhexaad ah oo islaamka ku adag una taagan difaaca shacabka Falastiiniyiinta. taasi ayaana ku qasabtay boqortooyada Sacuudiga in ay ka fakaraan oo ay dib u dhigaan caadiyiinta xiriirka Israa'iil. waxaana Sacuudiga maanta haysata laba daran mid dooro. maxay kula tahay daawada adiga? fadlan fikirkaaga hoos inoogu reeb. mahadsanid.